Arsenal oo guul wax ku ool ah ku bilaabatay tartanka Champions League. Arsenal ayaa si guul ah ku bilaabatay tartanka Champions League kadib markii ay 2-0 ka adkaatay Athletic Bilbao kulan ka dhacay Spain. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid adag oo lala yaabay, iyadoo Arsenal lagu qasbay inay la tacaalaan difaaca dhexe ee Bilbao. Markii la isku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta, Gabriel Martinelli ayaa kubad kala orday ku dhawaad kala bar garoonka, wuxuuna si xirfad leh u dawmariyay goolhayaha Bilbao Unai Simon. Leonardo Trossard ayaa caawiyay goolkaas, kadibna isaga ayaa dhaliyay goolka labaad 15 daqiiqo kadib, iyadoo Martinelli markaan uu dhiibay kubadda. guushan ayaa ka dhigaysa Arsenal mid si xoogan ku bilaabata ololahooda Champions League, iyagoo rajo weyn ka qaba inay u gudbaan wareegga dambe. dhinaca kale, muxuu Xabi Alonso ka yiri guushii dirqiga ahayd ay kooxdiisu ka gaartay Marseille? Tababaraha Real Madrid Xabi Alonso ayaa sheegay inuusan ku faraxsanayn qaab ciyaareedkii kooxdiisu soo bandhigtay kulankii Marseille, inkasta oo ay guul gaareen. Isagoo hadlayay ciyaarta kadib ayuu yiri, waxaan si fiican u ciyaarnay 30 daqiiqo ee ugu horeeyay. fursado badan ayaan abuurnay, waan awoodi karnay inaan hoggaanka qabano, balse anaga ayaa gool laga dhaliyay. kadib ciyaarta way isku dheelitirmatay. qaybtii labaad naf ayaan isgelinay, laakiin ma aysan jirin fursado badan oo cadcad. waxaan dareemay inaan si tartiib ah u xalinay ciyaarta ilaa ay xaaladdan ugu adkaatay kadib casaankii uu qaatay Carvajal. kaarkaas cad wuxuu ahaa mid si fudud looga fogaan karay. arrintaas waa inaan ka wada hadalnaa, ayuu yiri Alonso. Real Madrid ayaa hoggaanka laga qabtay ciyaarta, balse ugu dambeyn waxay 2-1 ku garaaceen Marseille, iyadoo Kylian Mbappe uu dhaliyay labada gool ee guusha. Rio Ferdinand oo taageerayaasha Arsenal ku amray inay cafis weydiistaan Nuno Madueke. difaacii hore ee Manchester United, Rio Ferdinand ayaa taageerayaasha Arsenal gaar ahaan kuwii ka hor yimid saxiixa Nuno Madueke ka codsaday inay cafis weydiistaan xidigii hore ee Chelsea. xidiga xulka England ayaa si qurux badan ugu bilowday noloshiisa cusub garoonka Emirates, taasoo la yaab ku noqotay taageerayaashii dhaleeceynayay. isagoo ka hadlayay kanaalkiisa YouTube ka hor kulankii Arsenal iyo Athletic Club, Ferdinand wuxuu yiri, waxaan rabaa inaan fariin u diro kuwii necba isaga, kuwii dhaleeceynayay Madueke. wuxuu soo bandhigay ciyaar heer sare ah. taageerayaashii Arsenalna hadda waa ay ku faraxsan yihiin, waxayna leeyihiin wuxuu noqday badbaadiyaheena. Madueke ayaa safka hore ku soo bilowday kulankii xalay, markaas oo ay 2-0 kaga badiyeen kooxda reer Spain ee Athletic Club kulankii furitaanka Champions League ee xilli ciyaareedka 2025-2026. ugu dambeyntiina, magdhow culus maxaa dhici doona haddii Ruben Amorim laga ceeriyo shaqada United? warbixin ay qortay Daily Mail ayaa sheegaysa in Manchester United ay ku qasban tahay inay bixiso 12 milyan oo pound haddii ay shaqada ka ceeriyaan tababare Ruben Amorim ka hor inta uusan dhammaan qandaraaskiisa oo ku beegan 1 November. tababaraha reer Portugal ayaa sanadkii hore kaga soo biiray United kooxda Sporting Lisbon, isagoo saxiixay heshiis 2 sano iyo bar ah oo sanadkii ku qaadanayo 6.5 milyan oo pound. United ayaa ku jirta bilowgii ugu liitay horyaalka Premier League muddo 33 sano ah, balse guddiga maamulka weli waxay taageero u muujiyeen Amorim, inkasta oo natiijooyinkiisa liitaan. kooxda Manchester United ayaa hore u bixisay in ka badan 54 milyan oo magdhow ah oo la siiyay tababarayaashii shaqada laga ceeriyay tan iyo markii uu Sir Alex Ferguson ka fariistay shaqada kooxda Manchester United. warbixinadaasna waxay qayb ka ahaayeen barnaamijkeenii bandhigga ciyaaraha oo aan mar walba uga hadlo wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo caalamka. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share garayso. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.